bismillaahi raxmaani raxiim wacanoo wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka falanqaynta caalamka oo xiliyadan oo kale aad ka daawataan maracadda showga 3 bisha Juulaay sanadka 2026 maalin jimca fadlan ha ilmaamin inaad akhriso suuratul kahfi iyo quraanka kariimka inta aad awoodid ha hilmaamin sidoo kale inaad salaada waqtigeeda aad ku dukatid maanta oo kale oo aad badisaa xuska nabigeena Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa aatee waalidiinta aan baari u noqono u samafalno dadka sidoo kalena aan wadooyinka ka qaadno wax walba oo dadka dhibaya ha noqon ruux wadada soo dhiga wax dadka dhibaya halkii aad noqon lahayd ruux dadka caawiya kana qaado wadada waxyaabaha dhibaatada leh haddii aad caafimaad qabto oo aad lugaynayso ogow ruux baa xanuunsan haddii maanta nafta ilaahay kugu soo celiyo ogow qof baa geeriyooday qofna dunidan ayuu ku soo biiray Allah subhanahu wa ta'ala gafkeena iyo geerideenna ma kulmiyo qodobada qaybtan aan kugula wadaagi doono waxaa ka mid ah aaska hogaamiyaha dawladda Iran in ka badan 200 kun oo askari oo Iran heegan ay gelisay magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi maxaa laga baqayaa macluumaadka Mareykanka banaanka uu keenay qorshaha Israa'iil ay doonayso inay ku qaarijiso hogaanka wada hadallada ku metelaya dawladda Iran Qalibaf iyo wasiirka arrimaha dibadda macluumaadka ku saabsan sargaalka ama taliyaha ciidamada dawladda Iran oo markii ugu horeysay sawiradiisa la helay hakan fidaan oo ka jawaabay eedeynta ra'iisul wasaaraha Israa'iil iyo gootada lo'da ay Israa'iil u diyaarisay inay difaacaan buuraha Jolan loo yaqaano ee xadka dalka Syria qodobo kale ayaa raaci doona insha Allah soo dhawaada saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo marcadda show barnaamijka falanqaynta caalamka ma doonaysaa sidan oo kale in waalidka looga cumreeyo halkan waxa uu cumreynayaa Abu Abdi Nur Ismaan oo isoo wakiilatay gabadhiisa shirkad la hubo oo aan damiin ka nahay almahdiyiin la xiriir telefoonka shaashada kaaga muuqdo mar kale isku soo noqod wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal dadaal dheer kadib Allah ayaa mahad iska leh waxa soo idlaatay waxbarashadii shahaadada labaad ee jaamacadda oo aan ka dhiganayay gudaha dalkani Turkiga gaar ahaan magaalada Istanbul halkan waxaan ku baranayay waqti aad u adag waliba xilli dagaalana ay socdeen akhbaaraadkana idin la wadaagayay waxbarashadana dhinacii ayaan ka sii wada taas oo ah يعني qofku waqtigu inuusan sugaynin waqtigu waa uu soconayaa waxa muhiim ah marka in laga faa'iideysto ma ahan in noloshan social media oo kaliya lagu qanco waa inaad wax barataa lama garanayo halka ay mar walba sheekadan ay ku soo idlaan karto ama baraha bulshada adiga wanaag kaga faa'iideysan karayna mar walba dhanka xumaanta ha aadina ayaan leeyahay saaxiibada baraha bulshada ku jira waxaan rabaa inaan u mahad celiyo Allah subhanahu wa ta'ala markasta waalidiintayda iyo dhammaan asxaabtii ehelkii iyo dadkii yani ii soo duceynayay oo aad xitaa adiga ka mid tahay maadaama mar walbaan idinla wadaagayay xilliga imtixaanaadka iyo marxaladaha adag lagu jiro Allah ayaa mahad iskale inta dhiman Allah inoo dhammaystiro waxaana u mahad celinayaa saaxiibadii isku fasalka aan ahayn inkastoo Soomaalida aan 4 ilaa iyo 5 ahayn inta kale ay ajaanib ay ahaayeen oo sodomeeyo ku dhow intii aan wax isla baranay semesteradii kala duwanaa ama fasaladii kala duwanaa Allah ayaa mahad iska leh adinkana waad mahadsantihiin sidaad noogu soo duceyseen si gaar ahaaneed aniga alxamdulillaah imtixaanaadkeena dhibco fiican ayaan helay balaas haddii aysan ahayn waaba maanis ayaan leeyahay oo idinka ayaa ducadiinii alla ii aqbalay adinkana waan idin duceynayaa laakiin dadaalku ha socdo aniguna waxaan rajeynayaa inaan sii socon doono insha Allah oo aan halkan ku ekaan doonin dad badan ayaa masterka qaartay oo iga horeeyay maanta waan soo qabtay marka isku shaati baan xiranahay waxaan doonayaa inaan hore u sii socdo dadka PhD-ga insha Allah ta'ala iyagana inaan soo qabto inta doonaysa inay wax baratana horaha loo sii socdo xirfadana xoogga hal la saaro Allah subhanahu wa ta'ala hal la kaashado waalidiintana hal laga duceysto waad mahadsantihiin aan soo laabano wafuud ka kala socota Ruushka Shiinaha Tajikistan iyo dawlado kale ayaa ka qayb galaya aaska hogaamiyihii dawladda Iran Ayatollah Ali Khamenei kaas oo munaasabadiisa aaska maalinta biri ka bilaabanayso magaalada Tehran oo caasimada dalka Iran muuqaaladii ugu dambeeyay la soo bandhigay ayaa muujinaya wafuudda kala duwan oo gaaray magaalada Tehran maanta sida warbaahinta Iran Observer ay baahisayna ciidanka booliiska saraakiisha ugu sarreysa ayaa ku dhawaaqay in la diyaariyay in ka badan 265 kun oo askari kuwaas oo xaqiijinaya amniga goobaha aaska uu ka dhacay iyo halka munaasabadaha ay ka socdaan sida warbixinta lagu sheegay iyadoo heegan buuxa la geliyay ciidamada ammaanka ee dawladda Iran si looga hortago xaalad kasta oo amni darro ah sidoo kalena waxyeello gaarsiin karaysa mas'uuliyiinta kala duwan ee ka qayb galaya aaska ka dhacaya magaalada Tehran oo caasimada dalka Iran ah
xarunta taliska ciidamada dowladda Iiraan ee Qaatim al-Anbiya taliyaha ugu sarreeya Cali Cabdilaahi ayaa maalintii shalay waxa uu soo saaray digniin adag oo ku wajahan Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iil waxaana uu kaga digay suuragalnimada weerar inay ku qaadaan gudaha dalkaasi Iiraan xilli la isku diyaarinayo aas qaran oo loo sameynayo hogaamiyaha dalkaasi Ayatollah Cali Khamenei oo lagu dilay duqeyntii maalintii ugu horeysay ee dagaalka 28 bishii February ee sanadkan. taliyuhu wuxuu yidhi waxaan uga digaynaa cadowga dowladda Iiraan gaar ahaan Mareykanka iyo maamulka sahyuuniyadda ayuu isticmaalay ee Israa'iil inay ka fogaadaan xisaab qaldan isla markaana ay ka fiirsadaan jawaabta adag ee ciidamada qalabka sida ee dowladda Iiraan ay ka bixinayso hanjabaad kasta ama gardarro kasta oo lagu soo qaado dalkeena. wuxuu sheegay in ay jirto suuragalnimada qorshe Israa'iil ay doonayso inay fursadan oo kale ay ka faa'iideysato oo ay beegsato hogaanka ugu sarreeya dowladda inkastoo mas'uuliyiinta Iiraan oo kaliya aaska aysan ka qayb galinin. meydka hogaamiyaha ugu sarreeya dowladda Iiraan ayaa la geeyay mid ka mid ah masaajidada ku yaala magaalada Tehran. waxaa lagu waramayaa in aaskaasi uu bilaaban doono maalinta biri oo 4 bisha Juulaay ah ilaa 9 bishan ayuuna dhammaan doonaa waxaana lagu soo gabagabayn doonaa magaalada Mashhad oo ah magaaladii uu ku dhashay hogaamiyahan halkaas ayaana lagu aasi doonaa. inta u dhaxaysa markaa ee 5 maalin ah sidoo kale waxaa aaska lagu qaban doonaa iyo munaasabado kaleba magaalada Qom iyo sidoo kale magaalooyin ka tirsan gudaha dalka Ciraaq. wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Iiraan Abbas Araghchi ayaa sidoo kale digniin waxa uu jeediyay cadowga dowladda Iiraan waxaana uu yiri waan ka warhaynaa qorshe kasta oo la doonayo haddii la isku dayo in weerar lagu soo qaadana jawaab adag ayaan ka bixin doonaa. maalin ka hor ayaad markii wasiirka gaashaandhigga ee Israa'iil uu si cad u sheegay in hogaanka ugu sarreeya dowladda Iiraan Mujtaba Khamenei uu bartilmaameed u yahay Israa'iil. warbaahinta dowladda Iiraan ayaa sidoo kale waxay sheegtay in si weyn loo adkeeyay ammaanka muddada aaska uu soconayo halka madaxa hay'adda duulista rayidka ee dowladda Iiraan uu sheegay in xayiraado ku meel gaar ah lagu soo rogi doono hawada magaalooyin ka tirsan dalka Iiraan si gaar ahaaneed magaalada Tehran iyo magaalada Mashhad si amniga loo xaqiijiyo. iyadoo xaaladda sidaas ay tahay ayaa dhinaca kale mas'uuliyiinta dowladda Mareykanka waxay walaac xooggan ay ka muujinayaan suuragalnimada Israa'iil ay ku beegsan karto mas'uuliyiinta ugu sarreeya dhanka wada hadallada dowladda Iiraan. wargeyska New York Times ayaa wuxuu qoray isagoo saraakiil Amerikaana soo xiganaya in maamulka Washington uu ka walaacsan yahay Israa'iil inay qorsheynayso inay beegsato ama ay disho laba ka mid ah madaxda ugu muhiimsan dowladda Iiraan oo kala ah gudoomiyaha baarlamaanka Mohammed Baghir Khalifaf iyo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda Abbas Araghchi. xilli Mareykanka iyo Iiraan ay ku jiraan wada hadallo xasaasi ah oo la doonayo in lagu gaaro heshiis xabajoojin kama dambaysa. saraakiisha dowladda Mareykanka waxay sheegeen in Israa'iil haddii ay disho labadaasi mas'uul ay si toos ah u burburin lahayd wada hadallada dhanka nabadda isla markaana dagaalka dib loogu laaban lahaa inkastoo Israa'iil tan iyo bilowgii dagaalka ay bartilmaameedsato hogaamiyaal sare oo dowladda Iiraan ka tirsan. warbixintu waxaa kaloo ay sheegtay Washington ay xitaa dalal kale oo gobolka ay ka codsatay in dowladda Iiraan ay uga digaan suuragalnimada weerarka Israa'iil ay qorsheynayso iyadoo fariinta halkaasi loo marsiiyay si looga hortago tallaabo kasta oo fashilin karta wada hadalka. tani ma waxay ka dhigan tahay marka Washington iyo Tel Aviv ayaa sii kala fogaanaya mar haddii macluumaadka ku saabsan qorshihii dilka ee hogaankan in lala wadaagay qaar ka mid ah dowladaha gobolka si fariinta Iiraan loo gaarsiiyo. saraakiisha dowladda Mareykanka dhankooda waxay qirteen intii dagaalka ugu kululaa intii uu socday in Khalifaf iyo Araghchi loo arkayay bartilmaameedyo muhiim ah oo Israa'iil ay doonayso inay beegsato maadaama ay qayb ka ahaayeen qorshaha dowladda iyo wada hadalka iyo qorshe kasta oo dagaalka lagu soo gabagabeynaya maadaama Israa'iil sidaas aysan doonaynin. saraakiisha dowladda Iiraan ayaa sheegay Khalifaf 2 jeer si dirqay inuu kaga badbaaday isku day la doonaya in lagu dilo. mid wuxuu dhacay 12 maalmood sanadkii 2025 halka midkii labaadna uu dhacay intii lagu guda jiray dagaalkii sanadkan markii Israa'iil ay weerartay kulan qarsoodi ahaa oo ay madaxda sare ee dowladda Iiraan ay ku lahaayeen mid ka mid ah buuraha hoostooda gabaadyada ku yaala 2 jeerna waxaa la sheegay in laga soo badbaadiyay burburka goobta la duqeeyay. markii la qorsheeyay in Khalifaf uu u safro magaalada Islamabad si uu la kulmo madaxweyne ku-xigeenka dalka Mareykanka ciidanka ammaanka ee dowladda Iiraan ayaa cabsi qabay cabsidaas oo Israa'iil inay arrinta ka faa'iideysato. marsii horeysana waxaa soo baxay macluumaadka ku saabsan Israa'iil inay doonaysay qaarijinta hogaanka ugu sarreeya dowladda Pakistan gaar ahaan taliyaha ciidamada dowladda Pakistan oo wada hadallada ku matalaya dowladda Pakistan lana sheegay inuu ka mid ahaa shakhsiyaadka ugu awoodda badan dalkaasi. diyaaradii wafdiga dowladda Iiraan ay saarnaayeen in ka badan 70 mas'uul oo Pakistan ku wajahnaa ayaa sidoo kale la sheegay in la isku dayay in la weeraro iyada oo si adag loo ilaaliyay laga bilaabo gudaha dalka Iiraan ilaa xadka Pakistan.
si kastaba haatee markii ay soo laabanayeen ayaa la sheegay in sirdoonka dowladda Iiraan ay heleen xog sheegaysa in Israa'iil ay qorsheynayso weerar lagu qaado diyaaradda afhayeenka baarlamaanka Iiraan uu saaran yahay isla markaana laba diyaaradood oo dagaal oo Israa'iil ay soo galeen hawada dalka Iiraan ee dhanka xadka Ciraaq iyagoo ka soo gudbay sababtaasi daraaddeed diyaaradda wafdiga dowladda Iiraan ayaa si degdeg ah uga dega magaalada Mashhad halkaasi kadibna wafdiga safar dhanka dhulka ah oo ku dhawaad 8 saacadood qaatay ayaa la sheegay inay dib ay ugu laabteen magaalada Tehran oo caasimadda dalka Iiraan ah wax walba oo ka soo kordha arrimahan barnaamijyadeena kale ayaan kugula wadaagaya insha Allah like saar muuqaalka la wadaag saaxiibadaada ood mahadsan tahay dhinaca kalena taliyaha ciidamada dowladda Iiraan ayaa waxa markii ugu horeysay la arkay isagoo ka qayb galay kulan muhiim ah oo amniga looga hadlayay kulankaas oo lagu diyaar garoobayay aaska hogaamiyaha dowladda Iiraan Ayatollah Ali Khamenei muuqaaladiisa iyo sawiradiisa ayaa markii ugu horeysay la arkay taliyahani cusub ee ciidanka dowladda Iiraan inkastoo hore xilkani loogu magacaabay haddana saraakiil kala duwan ayaa xilkan isaga kala dambeysay oo geeriyootay intii dagaalka uu socday dhinaca kalena wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Turkiga ayaa wuxuu ka jawaabay hadalkii ka soo yeeray ra'iisul wasaaraha Israa'iil iyo mas'uuliyiinta Israa'iil ee ay ku weerareen dowladda Turkiga Hakan Fidan waxa uu sheegay Israa'iil maanta inay raadinayso cadow cusub si ay u bedesho sumcadda ka dhalatay dagaalkii iyo burburkii ka soo gaaray intii dagaalada ay socdeen tan iyo 2023 isagoo ku adkeeyay in Turkiga uusan ka baqaynin inuu wajaho cid kasta oo ka hortimaada danaha qaran iyo kuwa gobolka ee dowladda Turkiga Hakan Fidan hadalkan waxa uu jeediyay kadib markii barnaamij ka baxa telefishinka CNN afka Turkiga lagu wareystay isagoo ka hadlay siyaasadda Israa'iil dagaalada ka socda gobolka iyo mowqifka Turkiga wuxuu sheegay Israa'iil muddo dheer in ay ku qarinaysay siyaasadda waxa uu ku tilmaamay malaawaalka ay dalalka reer galbeedku ay taageerayeen balse maanta arrintaasi aysan sii shaqayn kareynin maadaama bulshada caalamka ay si weyn uga soo horjeesatay loona bartay sida uu sheegay dunida oo dhan waxa ka jira buu yiri dhaleecayn sii kordhaysa oo loo jeedinaya Israa'iil laga bilaabo jaamacadaha warbaahinta ilaa xarumaha cilmi baarista waxaana uu sheegay tani inay sabab ay u tahay wuxuu ku tilmaamay xasuuqa sida cad loo arkayay iyo doorka Israa'iil ee xasilooni darrada gobolka sida uu sheegay Hakan Fidan wuxuu ugu dambeyn sheegay in hadda Israa'iil isku dayayso cadow cusub inay samayso hadalkiisan wuxuu imaanayaa iyadoo oo diblomaasiyad ahaan iyo danaha Israa'iil iyo Turkiga iska hor imaanayaan inkastoo xiriiro kale ay jiraan ugu dambeyntii wuxuu sheegay in arrinta Israa'iil aysan dhibaato gaar ah aysan ku ahayn Turkiga iyo madaxweyne Erdogan oo kaliya balse arrintaasi saameyn ay ku leedahay dunida carabta oo dhan isla markaana ay tahay arrin qusaysa bini'aadanimada oo idil sidoo hadalka u dhigay Hakan Fidan wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Turkiga warbixin lagu daabacay wargeyska iyo dacood Ahronoth ayaa lagu sheegay in Israa'iil ay bilowdo qorshe cusub oo dhanka amniga oo aan caadi ahayn kaas oo lagu ilaalinayo xadka buuraha Jolan ama Golan Heights loo yaqaano oo Israa'iil ay ka haysato Suuriya iyagoo adeegsanaya lo'da iyo sidoo kale beeraleyda rayidka ah warbixintu waxay sheegtay in fikradan ay ku salaysan tahay aragti ah in dhulka lagu ilaashan karayo oo kaliya haddii uu jiro joogitaan dhab ah isla markaana aan kaliya lagu filnayn saldhigyo ciidan oo halkaasi laga dhiso qiyaastii 6 bilood ka hor taliye ka tirsan ciidanka Israa'iil ayaa si qarsoodi ah u bilaabay qorshahan isaga oo kaashanaya aasaasaha ururka loo yaqaano Hashomer Zilberman ayaa lagu magacaabaa waxaana uu halkaas u geeylo aad u tiro badan dhul ballaciisa u gaarayo ilaa iyo 10,000 oo mitir oo laba jibaaran kaasoo ku yaala dhinaca dalka Suuriya kana dambeeya xadka dhanka buuraha Jolan sida warbixintu ay sheegtay talaabadan waxay abuurtay joogitaan rayd ah oo Israa'iil ay si joogto halkaas ay doonayso deegaameyn dadban inay kaga samayso taas oo ciidamada Israa'iil ay u arkaan inay ka hortagaan dad kale inay si fudud halkaas ay ugu soo dhawaadaan ama ay u isticmaalaan deegaankaasi dhaqdhaqaaq ay u arkaan kuwa qatar dhanka amniga ah ciidamada Israa'iil marka waxay sheegeen qorshahan in la sameeyay kadib 7 Oktoobar 2023 kadib markii qiimeyn lagu sameeyay qaabka ay u difaacaan deegaanada xuduudaha ah ee ay marinka Gaza la wadaagayeen sida ay sheegeen marka xoolo dhaqatada dalka Suuriya ayaa horey u sii joogtay oo u daaqi jirtay deegaanka taasoo Israa'iil ku tilmaamtay inay abuuri karto fursado lagu soo galo deegaanada dhinaca xadka ama lagu soo tahriibiyo hub sida daraadeed marka waa kaabarta ayaa ka badiyay isla kaartadii ay adeegsadeen bishii January ee sanadkan ayaa sargaal sare oo ka tirsan ciidamada Israa'iil waxa uu hordhigay qorshahan saraakiil kale saraakiishii way ansixiyeen waxaana la diyaariyay dhammaan kaabayaasha looga baahan yahay arrintan inkasta oo Zilberman loo sheegay in howlgalkaas uu qatar u leeyahay isla markaana ciidanku aysan damaanad qaadi kareynin ammaankiisa iyo sidoo kale xoolaha halkaas la geenayo haddana waa uu fuliyay qorshaha isaga oo beeraley rayda la socda
warbixintu waxay sheegtay in markii lo-dii Israa'iil halkaasi la geeyey xoolo dhaqatadii dalka Suuriya inay ka fogaadeen goobta si ay u ilaashadaan xoolahooda ugana ilaaliyaan khilaaf kasta oo yimaada taasoo keeni karta in Israa'iil ay sii xoojiso joogitaankeeda dhulkaasi. markii xoolaaleydii reer Suuriya ay deegaankii ka haajireen marka xoolaaleydan ayaa halkaas isku sii ballaarinaysa si marka hore xogaha iyaga ugu soo dhacaan dadkuna ay kaga baqdaan dadka halkaasi imaanaya si aysan goobta ugu soo dhawaanin. ciidamada Israa'iil waxay aaminsan yihiin inay faa'iidada ugu weyn ee qorshahani ay tahay in lo-da deegaanka ay si joogto ah u joogto halka cutubyada ciidamada ay mar walba ay isbedelaan oo ay dhaqdhaqaaqaan. mashruucan ayaa toddobaadkii hore loo ansixiyey waxaana loo bixiyey magaca Aalod Hashahar si loogu maamuuso kabtan ka tirsanaa cutubka Egos loo yaqaano oo dagaalkii Lubnaan lagu dilay. dhacdadii 7 Oktoobar 2023 wixii ka dambeeyay waxa isbedel ku yimid fikradii dhanka amniga Israa'iiliyiinta waxaana uu sheegay ninkan hadda qorshahani keenay in ku tirsanaanta ee deyrarka ama darbiyada la dhiso iyo ciidamadu ay tahay fikrad qaldan, isagoo intaa ku daray in marka lo-da la geeyo dhinaca Suuriya qof kasta oo halkaasi ku sugan in loo arko khatar amni ah halka markii hore dadka deegaanka ay cudurdaar uga dhigan jireen inay xoolahooda ay la socdaan. sidoo kalena waxa uu ku dooday in kooxda sida Xisbullah iyo xoogaga iska cabinta oo kale inay hore u adeegsan jireen dhaqdhaqaaqa xoolaha si ula socdaan dhaqdhaqaaqa ciidamada Israa'iil, balse ay u sheegeen qorshahani cusub in uu yareeyo fursadahaasi maadaama kaartadii la isla adeegsanayo. maxay kula tahay adiga qaybta hoos aragtidaada ku reeb like saar muuqaalka la wadaag saaxiibadaada waad mahadsan tahay. ciidamada dowladda Ukraine ayaa ballaariyay weerarada ay ka geysanayaan gudaha dalka Ruushka iyagoo weeraradaasi fogfog inta badan ku qaadaya bartilmaameedyo xarumo muhiim ah oo dhaqaalaha iyo warshadaha dalkaasi Ruushka ah. weerarkii ugu dambeeyay waxaa lagu qaaday warshad shidaalka sifaysa oo ku taala magaalada Oval loo yaqaano oo qiyaastii 1300 kiiloomitir xadka Ukraine u jirta. weerarka labaadna waxaa lagu beegsaday macadka cilmi baarista qalabka cabirka saxda ah ee magaalada Penza oo 600 kiiloomitir u jirta xuduudda dalka Ruushka. macadkan wuxuu ka mid yahay xarumaha ugu muhiimsan ee warshadaha difaaca ee dalka Ruushka maadaama uu soo saaro dareemayaal iyo qalab cabir oo si sax ah kuwaas oo loo adeegsado diyaaradaha, gantaalada iyo hubka istiraatiijiga. qalabka macadka uu soo saaray inta badan waxaa loo isticmaalaa gantaalada plastiga iyo sidoo kale nidaamka gantaalada Iskander loo yaqaano. sidoo kalena waxa uu soo saaraa dareemayaal loogu talagalay matoorada gantaalada cruiska, qalabka cabirka diyaaradaha dagaalka ee Su-34 iyo dareemayaasha cadaadiska ee diyaaradaha dagaalka qarsoon ee Su-57. tanina waxay macadka ay ka dhigaysaa qaybta ugu muhiimsan ee oo ka tirsan silsiladaha wax soo saarka hubka casriga ee dowladda Ruushka. wararka waxay sheegayaan in weeraradan sidoo kale lagu fuliyo diyaarado aan duuliye lahayn oo ismiidaamin ah nooca FB1 iyo FB2 loo yaqaano iyo sidoo kale gantaalada cruiska oo inta badan loo malaynayo inay yihiin nooca Flamingo oo dowladda Ukraine ay soo saarto. tanina waxay muujinaysaa in Ukraine ay si weyn u horumarisay awoodeeda ay ku garaaci karayso bartilmaameedyada istiraatiijiga ee ku yaala gudaha fog ee dalka Ruushka. weeraradan waxay qayb ka yihiin olole military oo aad u ballaaran oo Ukraine ay sheegtay inay socon doonto muddo 40 maalin ah oo lagu bartilmaameedsanayo warshadaha iyo kaabayaasha tamarta ee dalka Ruushka. Ruushkii shalay shidaalka dhoofin jiray maanta wararku waxay sheegayaan inuu isaga uu ka soo iibsanayo isla dowladihii shalay uu ka iibin jiray. waana cadaadiska xooggan ee Ruushka uu la kulmaya dhanka dhaqaalaha iyo bartilmaameedsiga dowladda Ukraine ee kaabayaasha tamarta iyo militariga. dhinaca kalena dowladda Shiinaha ayaa si rasmi ah waxay u sheegtay inay u diyaar garoobayso dhoofinta dufcadii ugu horeysay ee diyaaradaha dagaalka qarsoodiga nooca loo yaqaano J-35AE iyada oo dalal badan oo ku yaala bariga dhexe iyo koonfurta Aasiya ay muujinayaan xiisaha weyn ay u qabaan diyaaradahani casriga. shirkadda Shiinaha laga leeyahay ee SAC loo soo gaabiyay ayaa soo bandhigtay muuqaal cusub oo muujinaya awoodda diyaaradaha dagaal ee J-35AE. sida wararku ay sheegayaan muuqaaladan waxay ahaayeen fariin cad oo ka tarjumaysa in Shiinuhu aaminsan yahay in diyaaradan ay ka mid tahay hubka cirka ee ugu horumarsan dunida waqti xaadirkan. warbixintu waxay sheegayaan in dowladda Pakistan ay heli doonto diyaaradii ugu horeysay ee J-35AE halka markii hore la qorsheynayay 2027 hadda dhamaadka sanadkan 2026 ayaa la siin doonaa. waxaana lagu micneeyay baahida ay dowladda Pakistan ay u qabto xoojinta ciidankeeda cirka kadib dagaalkii bishii May dhex maray sanadkii 2025 iyaga iyo Hindiya. sida ay sheegeen ilaha dalka Shiinaha dagaaladaasi waxaa ka qayb galay diyaaradaha dagaalka ee J-10CE oo ku hubaysa gantaalada BL-15 waxaana la sheegay inay soo rideen 6 diyaaradood oo Hindiya ay lahayd.
iyada oo aysan lumin sax ahaanshiyaheedii dhanka hawada iyo hagitaankaba. arrintaana waxay si weyn ugu faaftay warbaahinta dalka Shiinaha, ilaa iminkana warbaahinada kale way hadal hayaan. Shiinuhu wuxuu ku doodayaa in guushaasi ay caddayso waxtarka nidaamkiisa dagaalka dhanka cirka, kaasoo isku xiraya xog ururin degdeg ah, ogaanshiyaha bartilmaameedka iyo weerarada saxda ah. waan arki doonaa qodobkan waxyaabaha ka soo kordha barnaamijyadeena kale ayaan kugula wadaagaya insha Allah.